idinka deegaankan marka aad joogtaan waxaad moodaysaan qabiilkan aad ka dhalateen ee hawiyaha la yiraahdo inuu inta jamhuuriyadda Soomaaliya degan yahay waxa laga yaabaa jamhuuriyadda Soomaaliya dadka degan dad ka badan inuu degan yahay deegaankaas sababtoo ah Axmed Gurey si fiican bay u qoreen ciidamadiisa sidoo u tababaray meeluhu ku tababaray meeluhu u kala qaybiyay fardoolayda iyo ciidanka kale ee waranka iyo gaashaanka tusaale gaaban hadii aan ku siiyo hadda geedkan waa geed weyn Soomaa laakiin jiridiisu waa hal sax markuu kor u baxay laamuu yeeshay laamahaasi maxay noqdeen laamo xoog badan oo midba dhinac u fiday Soomaa dadku sidaas weeye hawiinimada marka hoos u soo degano karanlaha iyo raaranlaha iyo xaskulka waa isku hooyo si la sheegay dana qaldaneen gugundhabaha iyo jambeelaha iyo gurgaartaan waa isku hooyo waana laba bah curnimada bal ayadan wax nooga sheeg muusadan inta ka war heerno waa yaraankii karanle bismillah horta aad baad u maasantiin dadku marka uu yare meeshii asalka ah ka tago oo fogaado ogaa dhalashadiisa ba shaki buu galiyaa anagu koonfurada markaan nimid dad waaweyn oo dhali kara oo waxay ku hadlayaan iyalka sabiga ee wadankan ka nimid aysan ku hadlaan aragnay marka labaad waa markii golaha dhaqanka beesha Habargid la caleema saaray Jowhara hotelna la dajiyay ma sha Allah Jowhara markaan deganayn 5 gaari oo teknika ah ayaa inda cadda iyo kuwa kale oo aan aqoonin nagu hareereeyeen oo nagu ilaalinayeen airportka markaan laga soo qaaday iyo markiina la geynayay macnaha waxaan u egnahay un dad maxabiis camal oo kala maantana markaan garoonka ka soo degnay ilaa aan hotelka nimaadno wax qori ah wax staff ah ma aanan arag maanta waxaan wareysiga qaadi doonaa ugaas Sahal ugaas Carab ugaas Yuusuf oo halkan u jooga kana soo qayb galay calaamasaarkii ugaaska Mursade ugaas Sahal waa ruwacda dhanka taariikhda aad u fiican waxaan rabnaa maanta inaan ka wareysano dowlad deegaankii iyo taariikhda hawiyaha ku leeyihiin iyo wixii ku tacalluqa hawiyaha dhinaca degan ugaas Sahal soo dhaw waan dhawahay adeer Ethiopia marka la yiraahdo magacan waqti dhow buu yimid ka hor waxay ahayd Ethiopia dadyow kala duwan waqooyiga Ethiopia iyo koonfurtan Ethiopia ama barigan Ethiopia way kala duwanaan jireen waxay ku kala duwanaan jireen korkaas sabeen Ethiopia lina ma waqooyiga Ethiopia waxa jiri jiray niman Axmaaro la yiraahdo iyo niman Tigray la yiraahdo muddo badan iyagu waqooyigaas ay isku haysan jireen laakiin waqtigii Menelik uu soo fiday ayaa Ethiopia magacan la yiraahdo uu Addis Ababa yimid oo qabtay ayaa magacan Ethiopia la yiraahdo la aasaasay anaga wuxuu bana soo gaaray magacu 1884 wixii ka horeeyay dad markii harar la qabsaday kadib wixii ka horeeyay dadku imaarada yar yar oo islaam ah ayuu iska ahaa qarniyadii ka horeeyayna adugu 1435 ama 1500 iyo waxoogaa waqti Axmed Gurey oo kale wixii ka horeeyayna hadee dadku dad aad u qiimo badan oo dhaqan ahaan iyo islaam ahaan ba xoog badan buu ahaa marka Menelik waqtigiisii ayaa noogu horeysay magacan Ethiopia la yiraahdo taariikhda Ethiopia laba loo qaybinaya hadda markaan eegno taariikhda cusub ee waqtigii Menelik waa tan hadda la qorayo oo de marka sabab la faafinayo taariikhii ka horeeyay laakiin markaan islaamka ka soo qaato 1412 sano ka hor yaa islaamnimadu Ethiopia ku fiday waxay ka soo bilaabantay Madiina waxay timi Sayla Bulaxaar iyo Sayla baad dikadaha ma jirin Djibouti ma jirin Berbera halka marka laga soo baxo magaalada islaamka ee la tagona waxay ahayd magaalada Harar Sheekh Yuusuf Kowineyn markuu yimid culimadii timid ee Soomaaliga ee taariikh leh ee alif la kordhabay alif la hoos dhabay alif la goday dadka af Soomaaliga ku hadla say ugu bartaan diinta islaamka lahjadooda loo fahansiiyo
ugu bilaabay way waxbarashada dhinaca luuqadaha kale ee walaalaha aan jaarka ahayn ee muslimka ee oromada oo kalena alif maal qaba raxmat rabbi qaba ba maal qaba takajala qaba sa maal qaba laba guba qaba wax la yiraahdo iyagana luuqadaas fiiriya xadaarada Soomaalidu marka halka ay ka joogto ee kuwaana ku bareen marka sidaas darteed ummadan Soomaaliyeed taariikhiyan waa dad la burburiyay ee la daaliyay mooyaan waa dad islaamnimada macnaha waqti hore hijriya 35 sano iyadoo jirta ayuu ay diintu ku soo fiday anaga deegaankeena masha Allah waa dad muslimiin ah waa dad ilaa galbeedka gaarsiiyay muslimnimada iyo islaamnimada iyo taariikhdan islaamka fidiyay wax baridda laf dhabar ah 72 amiir ee soo maray Harar hadii hoos loo galo taariikhiyan hadda imisa Soomaali marka la sii kala qaado imisa jiif hebel ah wax badan baa laga baranaya waana imaan kartaano hadda dalku waa dal isku furan xukuumadda jirana xukuumadii dhibka ma ahayn waa xukuumad dimuqraadi ah oo iska xadaari ah oo dadku sifa sharci ah markuu ku yimaado meelaha taariikhda laga helo ee history-ga ah tagi kara guriga taariikhda ee hindihi iyo dhaqanka ee Hararida waa mid aan laga celinayn oo marka soo tagno taariikhda islaamkuna waa sidaas taariikhda ummadda Soomaaliyeedna waa sidaas Salaan Axmed Gurey Soomaali qabiilo badan baa sheegta qabiilo badan Marreexan baa sheegta Gadabursi baa sheegta waxa sheegta oo kale oo maqlaayay niman la yiraahdo jidwaaq anigu ma maqal laakiin gari wuu sheegtaa laakiin sida aanu waqtigii hore dadkeenu badana orali sheeka iyo isku dhaafinayaa taariikhda awowka baa la isku warka la isku soo gudbin jiray markaan taariikhda ka duulayno Axmed waa nin hawiyo oo karala waliba hoos u dhaadhacay hawla ah hoos marka loo dhaadhacana waliba niman baad si hawlo leeydaado Simi Saalax jilib kamid ah oo iminka laga helo hubata meel leeydaado 25 kilomitir magaalada Harar u jirto oo halka marka aad tagto hadda idinka deegaankan marka aad joogtaan waxaad moodaysaan qabiilkan aad ka dhalateen ee hawiyaha leeydaado inuu inta jamhuuriyadda Soomaaliya degan yahay waxa laga yaabaa jamhuuriyadda Soomaaliya dadka degan dad ka badan inuu degan yahay deegaankaas sababtoo ah tusaale gaaban hadii aan ku siiyo hadda geedkani waa geed weyn Sooma laakiin jiridiisu waa hal sax markuu kor u baxay laamuu yeeshay laamahaasi maxay noqdeen laamo xoog badan oo midba dhinac u fiday Sooma dadku sidaas weeye jiriddu waa xagaas laamihii oo xoog leeyahay halkan jira oo halkan yimid laamihii marka aad bay u kala fogaadeen waxay noqdeen iyaga laftigoodu beela aan is aqoonin ama waxba isku tudhayn oo aad u kala fogaaday annaga laakiin maadaama jiridiina aan halkii joogno wali halkii un baan taaganahay oo magacii baanu ku haynaa hadii uu hebel yara qaldan waxaan war hebelow maanta waad qaldantay marka sidaas darteed taariikhda marka laga hadlayo Harar oo kale inta timaadaan buugaag baa jira qoraal ah hadii af Faransiis la eego hadii af Xabashi la eego kuwa professor Axmaari qoreen iyo kuwa niman Tigray ay qoreen xitaa oo ajnabi ah markaan qoomiyad ahaan Soomaali ka baxno ajnabi noqon karade taariikhda Axmed Gurey si fiican bay u qoreen ciidamadiisa sidoo u tababaray meeluhu ku tababaray meeluhu u kala qaybiyay fardoolayda iyo ciidanka kale ee waranka iyo gaashaanka nooc walba 24aad yaa la yiraahdaa afardaaba afkii Haradiyana waxa ku noqonaysa afardaaba meel ireysa la yiraahdaa banaanka weyn ee ireysa waxa lagu tababaray ciidamada fardoolayda ah marka Axmed waa nin aad u taariikh badan halgamay dadaalay kafa meeshan hadda la yiraahdo halkaas isaga markuu marayo Portugal uu ku dilaya ma Greegu waa meesha taariikhda dhabta ah hadda magaalada la yiraahdo Osana qowmiyadaha degan ama marka hadda qowmiyad baa lagu sheegaa laakiin qabiil ahaan waxay noqonayaan reerkan hadiya la yiraahdaa hadiya hawiyihi baa la bedelay hadiya laga dhigay
laakiin dad kale oo ku dhex milmay oo Afrikaas iyo walaalaheena way ku dhex jiraan magaalo madaxdooda Osana la yiraahdaa taariikh baa laga helayaa professorada Ethiopia wax aad uga cilmigan maadiga aad wax uga dhigi jireen way ka dhasheen oo sida professor Bayene Petros oo kale waa dadkii ay ka soo jeedaan marka Sidaama oo kale hadda region bay ahayd maalin dhaweyd xafladan tagnay waad aragteen baan u maleynayaa halkan waxaan u soo diray invitation 100 ruux inay ka yimaadaan 100kii ruux laakiin nooma imanay 8 ruux yaa noo timid oo cadaawo iyo ay ka mid yihiin Cali Dheere markii ay meesha tageen iyaga laftooda waa yaabeen dad xajmiga leh ama baaxadda leh oo dadkan la dhashay inay meel kale ku nool yihiin oo deegaan iyo dalay iyagu leeyihiin oo aysan marti ku ahayn haddana ay ku nool yihiin wax lala yaabay noqotay moogta marka sidaas darteed magaalo madaxda hadda Muqdisho aan joogno iyo halkaasi aniga waa isku kaymid oo sababtoo ah tanna waa leeyahay tana waa leeyahay marka marti kama tihidin macnaha marka Soomaalina dhibaatooyinku markay dhacaan reerana si toos ay u saameeyaan reerana si dadban bay u saameeyaan qarniyadii hore iyo dagaaladii hore ee kii Sheekh Maxamed Khaliif u dambeeyay odaygii Sheekh Maxamed Khaliif Sheekh Aadan Mustafa weeye qarnigii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxa laga joogaa 142 sano hadda waqtiga laga joogo kii u dambeeyay macnaha aan la galay nimankan Axmaarada ama sidaad u taqaaniin dhibaatooyinka salimiyada ayuu ka mid ahaa marka dadkani saameyn badan buu ku yeeshay marka dagaaladaasi saameyn badan bay taariikhdooda iyo abtirkooda iyo qabiilkooda ay ku yeesheen heer dadku isir sifayn baabiin cabsi gelin kala dhuumasho kala firir lagu sameeyay hadda nimankan abgaalka ee halkan jooga haddaad xaggan iyo Baali tagtid daawe niman la yiraahdo waa Daawud waa abgaal laakiin daawe Oromaan hay hadda ku dhahayaan laakiin abtirkooda way yaqaaneen hadda tusaalaan meesha laga soo raro baradhada ee xamar la keeno ama meel walba Soomaaliya la geeyo madolo mise xaggan Harar waxa la yiraahdaa Kombolcha nimanka halka beeraha leh ee degan totally waa abgaal Dr. Hussein Xaaji Bood markuu jaamacadda beeraha ee Halamaaya ku baranay waqtigii gumaysta oo Mareykanka iyo jaamacadda branchiga ka sameeyay harka Haramayadaasi moogta uu garanayaa deegaanka taariikh badan buu ka hayaa uu dhintaan maleen odaygu waqti hore marka sidaas darteed dadkani waa dad sidaas xadaarad iyo taariikh leh laakiin cadaadiskii waqtigii mililka laga bilaabo ilaa Silaase ilaa dargigii dhibaatooyinkii gaadhay baa kala firdhiyay taariikhdooduna inaysan ururin ka dhigay marka hadda waxa loo baahan yahay dad aqoon-yahana oo waxna qora waxna akhriya inay yimaadaan daraasaadyo ama baxsiyo la sameeyo sida Dr. Gandhi oo kale Professor Gandhi kii dhiman jiray Cabdalle sidaas oo kale inay yimaadaan oo baxsi fara badan la sameeyo buugaag hore oo qarniyo hore la qoray oo boqolaalka sano ka hor ee yaala oo ninba siduu doono u macneeyay si aan sida doonaan u macnaynin sida u yaaliin ay u qoran yihiin dadkii ajnabiga ee annaga aan qoomiyad ahaan Soomaali ka dhalan ay u qoreen in loo turjubo si loo gaaro xaqiiqda dhabta ayaan aad ugu in lahayn marka waxa kale ku weydiinaa burburkii dawladda Islaamiyada ama maamulkii Soomaalida ee ku lahaayeen Ethiopia qarnigii 18 dhamaadkeeda waxaa dhalatay maxaa la in Soomaalidu tafaraaruq badan dhaxdooda ka dhasho kala irdhoodaan dagaalo badan daashaday hadda ka hawiye ahaan maamulka dawlad deegaanka ilaa meeqa deegaan oo ka deegaan dhalinyarta badankood inay aqoonaan laga yaabaa hadda maamulkii markay maqlaan reer gooni inuu ku badan yahay u maleeyaa hawiyiina uu ku yaryahay deegaanku waa deegaan qowmiyadda Soomaalida deegaanka Soomaalida marka family marka loo kala qaado oday ama beelbeel annagu deegaamo badan baa ka deganahay tusaale ahaan caasimadda deegaanku waa Jigjiga waan hoos tagnaayo qabaleyada ama deegaamada hoos taga sida Dibowga iyo Hoosaale iyo deegaankeeni way Tulli iyo halkaaba korud soo
markaad xagga Fuyaanbiire aad u baxdana dhulkan Fuyaanbiire area-da Boorale dhammaan dadka degan markaad xagga Qundhudho u socotana waa meesha kaliya ee odaygii dadkani ay ku abtirsadaan ee Hawiye la yiraahdo uu ku aasan yahay meesha maalintii dhaweyd ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu booqday ee helicopterka ku tagay abaashu waxay u jirtaa 5 kilomitir ka yar bay u jirtaa marka sidaas darteed waa meesha aan ka soo farxanay baan oran karaa marka haddana xagga Baabili iyo Harar Qundhuro iyo Erer Hawiye ilaa halkee isku jiraan musalsalka meesha Qundhuro iyo Harar Erer waxay isku jiraan Togu waa gurigan oo kale buurtu waa gurigan oo kale Toguna halkaas uu ka dilaacayo Erer baa la yiraahdaa Toga marka talowdana magaalada caasimadda Harar yaad 13 kilomitir aad u soconaysaa marka Erer halkaas uu mara dhinacana waxa mara Toga la yiraahdo Daaqato haddana marka dhulku saas oo ahaa xagga deegaanka markaan ku soo noqdo gobolka Faafan oo Jigjiga Baabili iyo Ogosha iyo Fiiq yaan degannahay iyo Fuyaanbiire xagga gobolka Erer marka la yiraahdana Mayu iyo Fiiq iyo Qub iyo Lagahida yaan degannahay waa markaan qabiilada jilib markaan u sheego sida idinku rabtaan deegaanka Soomaalinimada markaan hoos uga dago weeyay marka laga gudbo haddana deegaan ahaan xagga iyo marka loo baxo Baali ama Sidaamo Soomaa markii gobolkiina Sidaamo Soomaa waxay degaan Jarati Baali Jarad Afdheer gobolka Afdheer Baali Jarati iyo area-da El Karri iyo Dolow Adow Dolow Bay Fiiltu dhulkaas ayay deegaanka dadku haddii xagga loo soo kacona gobolka Afdheer hoos Imay Galbeed iyo Abaqorow iyo meeshan kale Imay Barina sidaas oo kale reer ku degaan xaggan marka loo kacona gobolka Shabeelle Mustaxiil oo kale degmada Mustaxiil iyo area-daas ayay degaan xaggan hadii loo kacona Shilaabo dhinaca Lababaar iyo area-dan ayuu reer ku degaa waa gobolada macnaha deegaanka meelaha aan ka degannahay marka family-ga aad danaynaysaan Hawiyaha la yiraahdo marka haddana xagga loo soo noqdo la tago city maashinle sida loo yaqaano degmada Meeyso iyo area-daasna meesha la yiraahdo Hardiin iyo area-daasna waan degnaa marka sidaas darteed aad baan ugu firiirsanahay deegaanka marka deegaanka waan degannahay xildhibaanaan ku leenahay wasiiraan ku leenahay agaasimayaal baan ku leenahay wasiir ku-xigeenaan ku leenahay dad macnaha marti ama dadkani waa dad deegaanka ka tirsan la yaqaano qabiil ah qowmiyad ahaana Soomaali ah ixtiraam iyo maamuus iyo sharaf ku leh maasha Allah aad baan ugu fiicanahay su'aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay ahayd dhawaanadan waxaa jira deegaanada Hawiyaha dego dagaalo ka dhacay labada maamul Oromiya iyo dowlad deegaanka saa ka warhayno dhinaca Oromiya Hawiye kala degan dhinacana Soomaalida waa degan yihiin ma colaad Hawiye dhexdiisa u dhaxaysa jirta mise maamulada is haya dhibaatadu laba qaybood baan u kala qaybinaynaa horta dadku asalkaba siyaasad mooyaan dadku isma diido waa gartay laba siyaabood baa jirto meeli waa marka dadku dhul beereed iyo beer qodata ama dhul xoolo dhaqato beeraley u noqdo wasana wax la yiraahdaa jira xageena hebelow waad igu soo durugtay oo beertaydii baad soo gashay iyo hebelow kuguma aanan soo durkin wax la yiraahdo ee isku dhacaan markay xoolo dhaqato yihiin daaqa iyo biyaha ee isku dhacaan laakiin colaadan xuduuduhu way ka duwan tahay waa colaad siyaasadaysan Soomaali ahaana siyaasadda iyo isku dhaca ma hogaamin asalkaba qowmiyadaha kale oo walaalaha ahayn oo dhulkuna cidhiidhi inuu ku yahay yara dareemay oo dhulkeenana yara u arka inuu faalalba u yahay yaa raba badana inay na durkiyaan dadkiina hadday meeshoodii ka durkaan meel kale oo aadayaan ma jirto marka dagaaladu waxaasay ka kacaan marka labada dhinacba waa saameyn baan yaa dadka uu ku yeelanayaayo dhinacana waxbaa ka dhimanaya dhinacna waxbaa ka dhimanaya badanana waxay ku xaliyaan xukuumadaha ka jira labada dhinacba labada degmo labada maamul gobol iyo labada kililba
wada hadal miiska dushiisa ah صح yaa lagu xaliyaayo ma ahayn dee xuduudo micnaha boordharo dowlado kala duwan oo ajnabi ah oo la isku dhacay mee waa xuduud deegaan tuulo beer qabale weeyaa ma sidaad u taqaaniin tuula ah marka sidaas darteed boordhar shisheeye maadaama aysan ahayn waxa lagu xaliyaa isku imaatin iyo wada hadal iyo solution midda hadda meesha kaga baxo maalin hore markii calaamisaarka la sameynayay ugaaska beesha Buundhaw mar wuxuu ka dhawaajiyay dhanka curadnimada haweenimada marka hoos u soo degano karanlaha iyo raaranlaha iyo xaskulka waa isku hooyo si la sheegay dana qaldaneen Buundhawaha iyo Jambeelaha iyo Gurgaartaan waa isku hooyo waana laba bah curadnimada bal ayadan wax nooga sheeg muusadan inta ka war heerno waa yaraankii karanle bismillah horta aad baad u maasantiin dadku marka uu yare meeshii asalka ah ka tago oo fogaado ogaa dhalashadiisa shaki buu galiyaa anagu koonfur hadda markaan nimid dad waaweyn oo na dhali kara oo waxay ku hadlayaan iyaalka sabiga ee wadankan ka nimid aysan ku hadlaan aragnay tusaale gaaban hawiye asalkaba 6 buu dhalayba 6 waxa la yiraahdaa 3 bah shariif 3na bah buush baa la yiraahdaa 3da bah shariif markaan dhaano karalle xaskul iyo raarana weey 3da bah buushna waa Buundhaw iyo Gurgaate iyo Jambeelle karallo intuu dhashay 7 jir ah yaa hooyadoodba la guursaday ku wanaad sheegayso fadfan som marka curadku waa karalle oo muran kama jiro 7 jirkiisa lagu guursaday ba aayadii ama eedadii sidaad idinku u taqaanaa si fiican Buundhawaha marka la yiraahdo laakiin bahdiisu curad u yahay oo hadda iyaga curadnimada dhaxdooda hadday isku haystaan wabar Maxamed weey ninka meesha ka hadlayne cid kale ma ahe waa baadacade hadday iyagu isku haystaan annaga naguma haysan karaan oo taariikhda hadaysan aqoonin asal iyo farac buu dadku leeyahay asalkii annaga degane hanoo yimaadaan farac bay ahayn oo halkan soo gaaray iyagu marka sidaas darteed iyagu waxay curad u yihiin bah abuush Gurgaate yaa ku xiga Jambeela u yar fadfan sooma marka sidaas darteed curadnimo la isku maysee hadda kaasun baad maqashay kii ka dambeeyay ee Murale waas Axmed Sheekh Mukhtaar Sanyare oo shalay iyo doraad iyo tii ka horeysay xafladii martiqaadkeena lagu soo dhaweynay ka hadlayay beesha walaalaha ee curad ee karalle waan ka raali gelinayaa taariikh garawaansha la'aanta ka dhacday meesha oo wabarku geedka ka dhawaajiyay raali ha laga ahaado 3 4 5 jeer ku celceliye shalay u dambeysay Dayax Hotel markiina lagu martiqaaday Cabdi Cali Faarax iyo martiqaadayeen raali gelin buu ka bixiyay marka sidaas darteed in hadal maalin fakaday waxay u egtahay karanla curadnimada lagu meestay mursadaha lagu heystaa koonfur markii la joogo dadka mursadii karanla saga qaldan mursaduhu waa niman karanla horta waa niman karanla asalka basa u fahan karanla wuxuu dhalay 4 iyo gabadh gabadhii uu soo raacay afarta ilma karalle isaguna walaalkood oo ahaan ka yar u buuhaaye marka meel aanan joogin meesha uu karalle uusan joogin isaga curad ah haddii karalle wada joogona magaca karallaan curad ku noqonaynay jilibada marka la yiraahdo haddana karallaha dhaxdiisa si kala curadsanaanaya afar wiiladaad dhasho soo mid curad ma kala weynaanay marka marnaba lagama saari karo curadnimada beeshan annagu mursado ma naqaane waa darra karallaan u naqaanay moogta halkan aan ugu nimid magacaane marka sidaas darteed taariikhda asal iyo farac in loo kala qaado ku fiican tahay tusaale ahaan xadaarada ilbaxnimada adduunku halkay ka bilaabantay hadii la maanta wax laga yaabaa caasimada Dimashq inay ka bilaabantay meelaha qaarkood markaan taariikhaha dhageysano Ibn Battuta markuu geeskan Afrika badan intuu Indian Ocean ilaa badda soo maray wax qoraye wax buu qoray moogta taariikhyaanka islaamkii magaaladan Muqdisho la yiraahdo wuxuu qorxaafuun ilaa iyo marka inay dhul hawi ahayd dadka maamulka waqtigaas hayay ee uu ugu yimid ninka mas'uulka ka ah qabiil uu ka yahay taabgaal waa la yaqaanaa fiiriya laakiin annaga aqooyahankeena iyo culimadeenu iyo ganacsatadeennu taariikhda inay soo saaraan iskuma dhibin iskuma dhabar jabiyaan waxay aaminsan yihiin wada noolaanshaha
sida dadyowga qaarkood hadda taariikhda aysan lahayn ama u rogaan ama u dhalan rogaan hoodii baynan iyagu ka hadlayn hadday culimo yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiin marka doctor baadiye oo kale hadda aqoonyahan wey wuu garanayaa cimri ahaanna wuu garanayaa taariikh ahaanna waxbuu garanayaa marka cali maxamed geedi oo kale dadka wax qora waxna akhriya mutafahanka ah aniga maalinna islaamaanaan fadhiisanin laakiin intaan idaacadaha ka dhageysanayo sheekh cali wajiis oo kale tusaale ahaan markaan eego dad badan oo saasi way jiraan laakiin dadaalkeennu ma muuqdo taasina waxay ku tusaysaa dadku inuu bislaaday dadku waa dad hadda soo korayo wax raadiyay iyo dad intay koreen gaamureen burburay oo hadda macnaha rasmi wax walbaba macnaha dabiici u arka iyay kala yihiin moogta marka dadku eeshkaasuu gaaray baad moodaa laakiin qowmiyad ahaan waxaa idinka qaldan annagu markaan xaggaa deegaankaa degannahay qowmiyadda soomaaliyeed baan nahay qowmiyad gaar oo hawiye la yidhaahdo ma nihin waad fahan sooma qowmiyadda soomaaliyeedna hal rijin bay leedahay halkaa rijinna haddee ninba intuu sad ku leeyahay yuu maamulka kaga mid noqonaya marna waxbaad badsan marna waxbaa lagaa badsan waa intaas dabiici bay ahayd moogta ilaa hadda laakiin dad la yeeso maaha dadkaasi dad fiican weeye soomaalidu qabiil walba oo meeshaa degan ixtiraam badan bay u haysaa si fiican bay u soo dhoweeyaan xukuumadaha kala duwan ee soo maray xukuumado aad u qiimo badan xukuumadda aad u qiimo badan waa tan hadda uu hogaaminayo Mustafa tii ka horeysay waa dad lays oo dhibaatooyin badan baan ka soo maray laakiin tani xukuumad nafis ah oo dadka aragtidooda aan ku dhibaynin wax walbo wada hadal ku xalisa oo dadkii dhageysata baahiyada dee kolba itaalku intuu la eg yahay wax ku qabata weeye marka sidaas darteed dadkan koonfurta ku nool anuu magaalada Muqdisho waa markii saddexaad aan imaado maasha Allah marka koobaad waan ku dhaawacmay inaad ogtiin in kalimo ogeey dayax hotel qaraxii ka dhacay yaan ku dhaawacmay waa 10 sano ka hor marka labaad waa markii golaha dhaqanka beesha Habargid la caleema saaray Jowhara hotelna la dejiyay maasha Allah Jowhara markaan deganayn 5 gaari oo teknika ah ayaa in dhacda iyo kuwa kale oo aan aqoonin nagu hareereeyeen oo nagu ilaalinayeen airportka markaan laga soo qaaday iyo markiina la geynayay macnaha waxaan u egnahay un dad maxabiis camal oo kala maantana markaan garoonka ka soo degnay ilaa aan hotelka nimaadno wax qori ah wax staff ah ma aanan arag magaalada halkan intaan ka lugeynaa meeshii u dambeysay maasha Allah shalay dayax baa lagu tagnay gaari raaci maynaan waa lugeynaa magaalada si aan u aragno marka hadda nabadgelyo fiican waad haysataan alxamdulillah guriyo badan oo nan markaas aragna waad ka dhisteen oo dabaqyo irka ku tolan maasha Allah waas bedeshay burbur fara badan oo barigii in muuqdeen maanta ma muuqdo maasha Allah hadda koow inta la yiraahdo baa laba la yiraahdaa inaad nabadgelyadiin adkaysataan oo waliba aan nabadgelyada la idinka khalkhalinin oo la idinka burburinin ninka wax doonaya miis iyo wada hadal wax u doono waa inuu san gacan iyo qori iyo dhagax kor loo qaado waxba u doonin waxba ku doonin marka sidaa darteed aad baad u mahadsantihiin dhalinyaro jirta oo joogta maasha Allah ayaan ilaahay idinka rajaynayaa inaad noqotaan inaad soo booqataan oo meelaha aad u danaysaan waa imaanayna insha Allah oo xafiiska madaxweynaha idin geynaya insha Allah meelo badan oo hadda aad moodaysaan inaad macnaha ajnabi ka tihiin oo idaan ajnabi ka ahayn oo dadkaas iyo dalkaas inuu fiican yahay aad qiraysaan ayaan idin tus doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha Allah guriga taariikhda islaamku ay ku kaydsan tahay ee Harar yaan idin geynayaa insha Allah hadda ka hor waxa yimid Abdirasaaq Ilkadaab Soomaaliya xildhibaanadii Galmudug iyo nin kale oo la socdo xildhibaan oo isaguna beesha ah Abdiraxiim in la yiraahdaan u maleynaa Abdiraxiim way Abdixamiid iyo Abdiraxiim wax la labada magac baa iskaga khaldamay waan geeyay mudday joogeen ilaa heeraan madaxweynaha rida la kulmiyo maasha Allah marka insha Allah kaalaya soo dhawaad dhownahay deegaankan waa deegaankeen hadaan war kugu dheereen ku dhaano bal dhalinyarta hawiye ama kuwa Soomaaliyeed dowlad deegaanka degan iyo dhinacaan degan fariin u reeb farintaan u reebayo dhalinyarada Soomaali meel kasto ay joogaan geeska Afrika hadda meelo badan baan degannahay maasha Allah Kenya Soomaali baa degan Djibouti waa Soomaali halkan waa Soomaali regionka Soomaalida ee Ethiopia waa Soomaali
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa ama aan ku waaninayaa oon dardaaran uga tagayaa social media in si xun aysan u adeegsanin oo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo ummadnimadooda baabiisa waayo in si fiican loo adeegsado wax ka barashada iyo cilmiga iyo isku soo dhaweynta iyo walaalaynta bulshada inay u adeegsadaan maasha Allah oo aysan u adeegsanin kala sarreysiinta baabi'inta suurad xumaynta bulshada iyo maamulkooda inaysan u adeegsanin maasha Allah ayaan kula dardaarmayaa meel kasta ay joogaan oo fariintaydu gaadho aad baanad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsantahay sharaf ikram waxay jira kartaa